Assalaamu calaykum waa qaalin meeliya kulanti wacan walaalayaal meel walbo aad daafaha adduunka kaga nooshihiin. Maanta waxaan diiradda saaraynaa kooxda Bambeyda ama kooxda fanka ee ciidanka qalabka sida ee Ukraine oo maalin hore qaadeen nashiida ay ku ammaanayeen nabigeena Moxamed sallallahu calayhi wasallam, taas oo ugu talagaleen ciida fidriga iyo dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyo ujeedada ay ka lahaayeen dhanka siyaasadda anaga oo wax ka oranayna. Laakiin waxaan jeclahay intaa ka hor in aan kasoo xigano wargeyska Al Jazeera ee caalamiga ah, iyaga oo waraysi la yeesheen hogaamiyaha kooxda ee la yidhaahdo Ismaaciil Kurtamir, isla markaana in uu muslim yahay halkaa ku sheegay. Intaanan warkii oo fidsan u guda galin, waxaan jeclahay daawadayaal in aad nashiidada nebi ammaanka ah ila daawataan iyo muuqaalka muslimiinta Ukraine iyo ciidankooda. Waxaa nagala qayb qaadanaya kulankan Kiev nagala socda martideena hagaha ciidanka qalabka sida iyo fanka ee Ukraine Ismaaciil Kordiev iyo ciid wanaagsan. Maxaa idinku kalifay ama nigu riixay in aad nashiidadan diiniga ah duubtaan weliba dareyska ciidanka ee munaasabadan? Ismaaciil: aniga shakhsi ahaanteeda waxaa ka mid ahay xubnaha ururka suugaanta ee Ukraine, haddana muslimiin badan ayaa u dagaalamaya Ukraine darteeda. Waxa ayna ka qayb qaadanayaan dagaalka iyo sidoo kale in fara badan muslimiinta Ukraine islaamkana waxa ay ka qayb qaadanayaan kaalmada bini'aadanimada. Waxaa intaa sii dheer in ay Ukraine leedahay qowmiyad muslim ah oo la yiraahdo Tataarka Qirmiga. Bandhigan faneedna waxaan u sameynay in aan u mahadnaqno muslimiinta Ukraine iyo kuwa caalamkaba. Anagana heestan ama nashiidadan waxaa u qaadnay in aan ku maamusno dhamaadka bisha Ramadaan iyo bilowga ciida. Tanna waxa ay naga ahayd mid si gaar aan ugu talagalnay in aan ku taageerno muslimiinta u taagan u dagaalanka iyo difaaca Ukraine si ay xorriyadeeda u hesho. Hagaag mudane Ismaaciil,
maxaad isleedahay ra'yigaaga sidee u arkaan muslimiinta Ukraine ku nool oo lagu qiyaaso 1 milyan bandhigan nashiidada Nebi Moxamed sallallahu calayhi wasallam lagu ammaanayay weliba soo bandhigeen ciidamada qalabka sida ee Ukraine Ismaaciil aad ayaan uga xumahay maxaa yeelay aniga kama hadli kari muslimiinta oo dhan iyo ka falcelintooda laakiin waxaan rajaynayaa arrintan in ay muslimiinta si guud ahaan u saamaysay welina gaar ahaan muslimiinta Ukraine ku nool waana ku faraxsanahay in aan taa maqlo waan gartay mudane Ismaaciil Kortamiir waxaan aad u jeclaan lahaa haddii aad wax inooga taabato samaynta heystan iyo diyaarinteeda daahsoon iyo waqtiga ay idinku qaadatay maadaama aad koox ku diyaariseen waxa aad arkayso oo dhan 4 maalmood ayaa lagu diyaarshay arrintana sideedba fikrad degdeg ku dhalatay ayay ahayd waana fikirkayga gaarka ah waxaana u bandhigay hoggaanka sare ee ciidanka waa ayna igu taageereen 4 maalin gudahoodana nashiidadan iyo ducada ayaan helnay laxan ayaan saarnay kadibna waan duubnay natiijadana sidaad aragteen ayay noqotay ama markii ugu horeysay oo aad luqadda Carabiga ku haystaan Ismaaciilo aniga horta muslim ayaan ahay salaadahana ducooyinka waan ku aqriyaa Carabigana in yar ayaan ka fahmayaa laakiin kooxda inteeda kale Ukraine ayay ahaayeen oo muslim ma aha Ismaaciil Kurtimero haddii aan ka faa'iidaysto kulankan bal ma inoo qaadi kartaa hadda nashiidada nebi ammaanka amaba nashiidooyin kale qayb ka mid ah oo aad adiga doorato iga raali ahow iminka waxaan ku suganahay goob aan loo oggolayn in heys ama nashiido lagu qaado طبعا waxba dhib ma laha mudane Ismaaciilo laakiin hadda waa maalin xafladeed waxaana ku sugannahay bil adag oo ay Ukrainiyiinta ka warhayaan muslimiinta iyo inta kaleba maxay tahay fariinta aad ka leedihiin heystan ee aad u direysaan muslimiinta Ukraine iyo qeyrkooda aniga caalamka waxaa u rajaynayaa in ay helaan nabad iyo horumar sidoo kale waxaan rajaynayaa in uu dagaalka Ukraine dhamaado sida ugu dhaqsiyaha badan si ay Ukraine ugu soo noqoto nolol maalmeedkeedii caadiga ahaa iyo dhiigga la qubayo in uu caalamka ka joogsado iyo nabad gelyo assalaamu calaykum waan gartay mudane Ismaaciil sidee ku qaadateen maalintiina ciida ma mid caadi iska ah ayuu ahaa ama maya aniga waxaan u tahniyadeeyay waalidiinteeda iyo qaraabadeeda iyo dadka da'da ah bilashada ciida iyo dhammaadka Ramadaan kadibna asxaabteeda ayaan la kulmay qaxwo ayaan wada cabnay waana damaashaadnay mudane Ismaaciil ma jiraan maanta bundigniin ah oo la yeershay maadaama dagaalo ay ka jiraan ama jawiga waa uu degnaa wallahi aniga Kiev ayaan joogaa goobtaana waa taqaanaa ciidamada Ruushka iyo dowladda Ruushka duqeyn ba'an ayay ku haysaa magaalooyinkeena iyo shacabkeena sidaa awgii ma oran karo maanta maalin degan ayay ahayd iyo jawi farxadeed laakiin mar aan maanta asxaabteeda la fadhiyay ayaa sawaariikhda ku soo dhacaysay magaalada Odessa si kastaba ha ahaatee ma oran karno jawiga guud ahaan waa uu degnaa laakiin anaga
waa isku daynay in aan dabaaldega ciidda sii wadano. Mahadsanid mudane. Ismaaciil Kortomir waa xubin ka tirsan kooxda fanka ciidanka qalabka sida ee Ukraine. Si kastaba hadalka ha loo dhigo, laakiin aniga waxa ay ila tahay in ay Ukraine garab ka raadsanayso mujaahidiinta Islaamka ee daafaca caalamka ku nool, iyaga oo ku andacoonaya anaga xaqa muslimiinta nagu dhex nool waan doornaa. Taana waxaa ku kaliftay dagaalka oo kusii xoogaysanaya dhanka bari ee Ukraine, sida aadba qariidada ka aragtaan Mariupol iyo Kherson iyo dhulal badan gacanta Ruushka ayay ku soo dhaceen. Qaar ka mid ahna waa ku soo dhici doonaa maalmaha soo socda. Intii kulanti dambe, daawadayaal, like-ta iyo share-ta ha ka ilaawina channel-kiina Qaalin Media. Waa AF oo idin leh nabad.